heshiiskani waa heshiis qiimo leh lana xiriira kaabayaasha dhaqaalaha waddanka ugu qiimaha badan la mid ka mid ah oo ah xadhigga keebilka hadduu noqdo kuwa badda la hoos dhigo iyo kuwa dhulka la dhigo. sababta waqtiga dheer loo geliyey waxa weeye in maadaama Somaliland leedahay ilaa 800 iyo dheeraad kiiloomitir oo xeeb ah in ay fursad u hesho in ay ka qayb qaadato tartanka gobolka jira ee xadhkaha la xiriira. sidoo kale waxa baahi xoog leh oo qaba nolosha guud oo dhan maanta ku xidhan technology-guna waxa uu sal ama meesha ka dhaqaaqayso dhaato xawaaraheedu sarreeyo tayada fiican in la helo. wasaaradda iyadoo taa ka duuleysa isla markaana daneeyaasha xadhig ay diyaar u haayeen in heshiiskan galaan iyo waqti dheer ay gelisay iskuna soo dhaweysay. waxa kale iyaduna keenay markii hore mu jirin shuruucdii iyo siyaasadihii la xiriiray xadhigga taa laftigeeda marka intii la diyaarinayay la qaaday best practices-ka isla markaana laga howlgelayay qaab waafaqsan sida standardka caalamiga ayaa iyaduna keentay inay muddo qaadato. marka aragtidu waxay ku fadhidaa in xadhigga keebilka uu dhigmo in waqti badan la geliyo wixii caqabado hore u jirayna la xalliyo. heshiiskan wuxuu hordhac u yahay fikradda la yidhaha in la wadaago kaabayaasha dhaqaale ee isgaarsiinta ama telecom infrastructure sharing. way ka mid yihiin taawaradu, way ka mid yihiin xadhiggana ka mid ah, way ka mid yihiin laftigeedu saydadka qaarkood inay wadaagaan iyadoo iminka 5G loo sii wareegayo madhow loo baahan doono daato iyo xog fara badan la isweydaarsado. waxaa ku qasaba in ay shirkaduhu wadaagaan waana tallaabada maanta taalla heshiiskuna hore uu yahay hordhac. faa'iidooyinka uu leeyahay in la wadaago infrastructure waxa ugu horeeya cost-ka oo maalgashigii la gelin lahaa wax isku mid ah oo tusaale ahaan haddii shirkadaha daneynaya ay yihiin 3 ama 4 halkii mid waliba uu qodi lahaa in maalgashiga la isugu habeeyo meel la isugu geeyo wixii kaga bixi lahaana ay qaybo kale uga faa'iideystaan sida hal abuurka oo kale shaqo abuur ay u sameeyaan dadka iyo inay adeegyo hufan oo kale soo jeediyaan. waxa kale iyaduna ka mid ah faa'iidada tahay in markay noqoto xagga wasaaradda iyo dowladda ay fududaan doonto korjoogga iyo nidaaminta marka wixii la shirkareeyo. waxayadoo sida kalena ay faa'iido badan ay ku yeelanaysaa dhowto la bedelaadda hadday technology cusub yimaado wixii wax fudud noqdo. marka wasaarad ahaan waxaa siyaasad noo dejisan in shirkadaha aan ku qasabno inay wadaagaan dhammaan ama inta ugu badan kaabayaasha farsame ee isgaarsiinta. heshiiskana hordhac u yahay wuxuu sidoo kale heshiiskani uu fududeynayaa in dhigitaanka xadhiggu noqdo mid raaca qorshe wasaaraddu u samaysay master plan oo sida iminka jira xadhkaha leydhka oo kale aanay iman in xadhko isbarbar yaacaya oo hadhow in meel la suugeeyo aanay adkaato ay dhacdo siiba magaalooyinka waaweyn gudahooga oo aad la socotaan in waddooyinkanu ay ciriir yihiin horena ay u jireen xadhko muddo dheer yaallo isgaarsiinta hore yaallay. marka wasaarad ahaan master plan baan u samaynay. heshiiskan wuxuu raacaya master plan-ka waxa kale iyaduna ka faa'iideysan doona tusaale ahaan dowladaha hoose adiga arko marka biyaha la gelinayo iminka waxaa dhici karta in xadhko ama hanti kale leeyihiin shirkaduhu ay maalin walba go'do ay ka dhacdo marka mushkilad iyaduna faa'iido kale leedahay. bulshada laftigeedana waxay faa'iido u leedahay qofka macmiilka marka uu og yahay in xadhig loo midaysan yahay meesha marayo maalinba shirkadda uu doono si fudud buu uga qaadan karaya. halka iminka laga yaabo haddii ay hal shirkadii ay tusaale ahaan ay meesha marayso oo shirkadaha kale ka fog yihiin inay qofka macmiilka ay ku adkaanayso inuu meel uu fog ka soo qaato. marka faa'iido badan bay xagga bulshadana u yeelan doonta. wasaaraddu heshiiskan sababaha ay uga howlgashay isla markaana ay u hirgelisay waxa ugu horeeya in Somaliland noqoto goob gobolka oo dhan u noqoto waxay yiraahdaan hub ama meel la isugu yimaado oo u qaybisa dhactada tukada. talabaadna maadaama dhaqaaluhu uu ku jiro isbeddel xoog ah oo aynu doonayno in dhaqaaluhu noqdo mid casri ah in la helo kaabayaashii farsame u hirgelinayay oo ugu horeysa dhacdadu. waxa kale iyaduna jirta in la standard gareeyo ama laga dhigo halbeeg midaysan
fidinta adeegyada internetka saad la socotaan baryahan dambe adeegii codka iyo adeegii fariinta iyo adeegyada kale isgaarsiinta hore loo yaqaan waxay isu bedelayaan qaab digital ah. Digitalkaasna mar walba wuxuu u baahan yahay daato jira. Waxa kale iyaduna yahay ujeedada in shirkadaha isgaarsiinta laftigooda meel la isugu keeno iyadoo aan ujeedada ahayn in ay shirkaduhu dadka ay u midoobayaan waxaan ay u midoobayaan adduunka meel buu ka jira tusaale ahaan wadamada kale waxaad arkaysaa hal shirkadoo xadhigan oo kale gacanta keligood ku haysta iyaguna adeegyada ka qaadanaya. Waxay in tartanka lagu soo celiyo shirkadaha dhexdooda ka dhaca tartan la xiriira adeeg bixinta adeegga laftigiisa aanay noqon mid ay ku tartamaan infrastructure-ka iyo kaabayaasha laftigooda. taas ay ujeedada ugu weyn. ugu dambeyntiina waxa weeye inaynu adduunka aynu qayb ka noqono maadaama Ilaahay uu siiyay bad ka badan 800 kilomitir buqacad muhiim ah ku naalno mustaqbalkana aan rabnaa inay noqoto meel xarun noqota daatooyinka tusaale ahaan kambaniyada waaweyn ee bixiya daatada sida Facebook iyo Amazon iyo kuwa lamid inay halkan keenaan waxay dhahdaan bob ama kaashiko kalima ka dhaco inagu aynu martigelino. waxay taas markaa abuuri doontaa shaqo abuur ay ka mid tahay in sameeyo call centero daayirta in samaynta sistemyada softwaradu ay u noqdaan dadka soo isticmaalaan mid ay ku hirtaan iyo inaynu technology ahaanba caalamka la jaan qaadno. gobolka Geeska Afrika tartan baa lagu jiraa la xiriira xadhkaha iyo gudbinta daatada wadamada kale jaarkan waxay yaalaan tira xadhka aragtida waxa weeye in Soomaaliland ay qayb ka noqoto tartanka. maalin walba waxaa jira xadhka cusub oo la dhigayo kuwii hore yaalay iyagoo halkooda yaalaan in hadda kuwa cusub laga faa'iidaysto ay qayb ka noqoto tartanka. waxa markaa dhow lagu tartami doono waa adeeg bixinta hadday noqoto xagga qiimaha iyo hadday noqoto xagga hufnaanta iyo hadday noqoto siyaasadda. markaan is leenahay maadaama suuqa xorta muddo ku dhow 30 sano Soomaaliland ay ku soo dhaqmaysay tartan fiican bay ka geli kartaa dhinaca tartamada xadhkaha. waan is leeyahay siyaasadda Soomaaliland ama siyaasadda looga baahnaa Soomaaliland way diyaarsan tahay qayb badan ay ka qaadan. waxaa kaloo iyadana ay keenaysaa in kharashkii ku bixiyay dhigidda hore xadhigga iyo hadhow dayactirkiisa bedelaadiisa iyo xawarhayntiisa markii la midaysan yahay in waxa la yidhaha kharashka deploymentka iyo maintenance-ga ama operator maintenance cost shirkadaha laftigooda mar haddii la mideeyo meel wada maraya in ay ka fududaato ay noqoto wax loo midaysan yahay. taasina hadhow looga faa'iidaysan karo shirkadu ay qiimo dhimista ay ku sameeyaan adeegyada bixinayaan in kharashaadka badan ku baxaan maaraynta infrastructure-ka ama kaabayaasha waa faa'iido kale iyaduna ugu keeni karo bulshada. waxaa noo fududeeyey siyaasadda madaxweynaha oo mar walba aaminsanaa in laga saaro caqabadaha hortaagan bixinta adeegyada isgaarsiinta ugu horeyso in tartanka shirkaduhu noqdo tartan la xiriira adeeg bixinta. taas oo koowaad noo fududeysay kale madaxweynuhu waqti badan u geliyey waanu ka midhi dhaliyay isagu horeeyey. talabaad kale waxay ahayd wasaarad ahaan waxaan qaadanay doorka inaan ka noqono dhexdhexaad neutral kana shaqeyno danta guud ee qaranka oo shirkadaha laftigooda waxa uu dana in suuqu ka dhaco tartan xalaal ah oo la xiriira bixinta adeegyada. wax kaloo iyaga u dana in ay bulshada hesho adeeg wanaagsan sidoo kalena inta kale sida shirkadaha kale ganacsiyada kale iyo bulshada laftigooda iyo cid kastoo danaysan inay aan kala shaqeyno sidii ay dalka ay uga dhici lahayd tartan saaxiib. waxaa markaa noo fududeyn isleeyahay dhexdhexaadnimadaas. waxaa kaloo iyaduna aad noogu fududeyn isleeyahay waxaa ka mid ah in aanu qaadanay best practiceska adduunka sidee loo maamulaa waqti badan aan gelinay halkii ka iman kartaa si wax loo dhici karaa. shirkadaha laftigooda iyaguna warshaqeyn fiican bay nala sameeyeen intaan hawshaa ku jirin wax badan bay fududeeyeen inkastoo marka qaarkood ay meelaha qaar u baahnaan in isfahamka aada hoos loogu dhacdhaco haddana iyaga laftigooda soo fududeeyeen iyo aan odhan karay waxay ahayd xilli ku habboon oo fahamka iyo basaylka dad ku jira sectorka ay soo gaareen xilli wax la wada qabsan karo. ugu dambeyntiina kolley wasaaradda iyo dad ka wada shaqeyn dhammaantood waqti
badan ay geliyeen aad baan ugu mahadnaqayaa oo ay qayb badan ka noqotay kuna wanaagsan. heshiiskan wuxuu sheegayaa in la sameeyo shirkad afar geesood ah oo maamusha xadhigga dhulka hoostiisa la dhigayo fiber optica la yidhaah ama qaybta la yidhaah stereo oo afarta dhinac ee heshiiska ku yahay ay wada lahaan doonaan. shirkadaas waxay yeelan doontaa guddi agaasin ama board waxa la yidhaha madax bannaan oo ka madax bannaan afarta dhinac. guddidaasina waxay samayn doontaa maamul madax bannaan oo yeelan doona qaybihiisa kala duwan laguna heshiiyey in lagu xusho qaab aqoon iyo karti loo abuurkiisa la yidhahdaan oo afarta dhinacba ka madax bannaan. marka wuxuu noqon doonaa shirkad madax bannaan xeerkuna uu noo ogol yahay dowladaha dowladdu samayn karto ama ay saami ka yeelan karto ama ay la shuraakoobi karto shacabka. waxa qoraya xeer 17 oo ah xeerka sheegaya dhismaha hay'adaha dowladda iyo awooddooda. wuxuu ogol yahay dhammaan hay'adaha dowladda inay ay samayn karaan shirkad gaar ah isla markaana ay la shuraakoobi karaan dadka shacabka ah. marka wuxuu hirgelayaa inuu sameeyo shirkad madax bannaan oo maamulkeeduna uu ka madax bannaan yahay afarta dhinac. shaqaday qabanaysa anay tahay maareynta iyo maamulidda xadhigga oo keliya aan wax kale aan ka shaqaynayn. xadhiggan sheegaynana waa xadhigga dhulka hoos yaalla weeye. xadhigga badda uu madax bannaan yahay cid way keeni kartaa. bixinta adeeg macaamiisha gaadhisana shirkaduhu way u madax bannaan yihiin. tartankoodu halkii kasii jiri doonaa laakiin intaa dhexda ay shirkadda maamuli doonta. shaqada shirkaddu iminkun bay bilow tahay. waxa ugu horreeya imika laga shaqaynayo waa in la mideeyo shabakadaha ama network ay leeyihiin shirkaduhu oo si fudud inay wada shaqeeyaan tahay. waxa kale iyadana muddo u baahan inay qaadato xadhkaha keeni doona daatada. sidoo kalena waxa u baahan shaqo in laga shaqeeyo qaabkay shirkaddan dhinacyadana adeeg u bixin lahayd. cid kastoo kale u baahan adeeg u bixin lahayd laftigeeda siyaasadda la bilaabayo. marka heshiisku wuxuu barbilow yahay shaqo muddo qaadan doonta oo dheer oo laftigeedu aan ka yarayn tii hore socotay oo aan ilaahay ka baryo noo fududeeyo wax badan waddanka ka bedeli doonto. marka si tallaabo ay wax isu bedeli doonaan oo waxaan maalin iyo habeen dhexdooda ay wax walba ay dhammaanayaan maaha. laakiin waa infrastructure qiimo tusaale ahaan imka xadhig wuxuu yaallaa ilaa 1600 kilomitir buu yaallaa. intaa looga kale in lagu daraa la rabaa marka la sugayo goobaha la geynayo. waad garan kartaa dhul intaa laga baxad intaa la hawsha u baahan tahay. shirkad kasta oo danaynaysa inay keento daatada dalka way keeni karaysaa. suuq waa xor sida dastuurkeenu sheegayay, siyaas ahaan u furan tahay. haddii la isweydiinayo xadhiggani ma ka hor istaagaya shirkadaha ama ciddii doonaysa ama danaynaysa inay keento waa may weeyi. waxay ku keeni karaan in markay keenaan xadhiggooda badda in shirkaddaa la sameynaya ay ka kirayn doonto oo ay u qaban doonto adeegii qaadidda daatada. tusaale ahaan berbere ilaa burco kale ama berbere ilaa laascaanood kale ama berbere ilaa booramo kale in halkii ay xadhigga dib ugu qodi lahaayeen shirkaddana ka kiraynaysa. waana sameynay xeer nidaamyihii lagu maamulayay waanay hawl ay ku qasbantahay shirkaddu ay u bixisaa ay u fidisa adeeg cid waloo keenaysa daato dalka. waxaan halkan uga mahadnaqayaa dhammaan cid kasta oo ka soo shaqaysay kana qayb qaadatay hawshan oo ugu horeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo runtii dadaal iyo waqti iyo geliyay hawl fara badan oo runtii aanu isagu aanu garab taagnaan hawshaas dhamaystiran. sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa shaqaalaha wasaaradda laga bilaabo mas'uuliyadda iyo shaqaalaha kale wasaaradda iyaguna hawl waqti badan geliyay. hantiilayaasha iyo maamulka saddexda shirkadood iyaguna waqti badan geliyay oo runtii wax badan ay doonayeen ka tanaasulay isla markaana ka doorbiday inay danta guud qaataan iyo maamulkooda iyo cid walba farsamo yaqaanada iyaguna hawsha fududeeyay. waxaa kaloo iyadana aan halkan uga mahadnaqayaa
dadkii madax bannaanaa iyaguna ka bixiyey talo oo wax badan ka qaatay oo halkan magacyadooda aanan dhammaantooda xusi karin laakiin aan leeyahay cid walba ka soo qayb gashay aad baad ugu mahadsan tahay waana nala fududaysay iyo shacabweynaha reer Somaliland kale aad u daneynayo iyaguna ka helna taageero kala duwan oo iga soo dhaweyn iyo dhiirigelin aan mar walba ka helinay mar walba waxaa sidoo kale iyagana u mahadnaqayaa baarlamaanka 2020 qayb ka mid ah xeerka wax ka bedelay oo laftigeeda fuday iyo ka garab istaaga baarlamaanka iminka jooga xildhibaanada falaha wakiilada iminka jooga kuwii hore laftigooda ay door weyn ka qaateen oo wax badan noo fududeeyo wasaarad ahaan oo shaqeyn fiican oo wadana xubnaha golaha wakiilada